fursado tayeesan oo waxbarasho xilli hore shirkadu waxay ku bilowday inay ardadu u dirto wadamada Suudaan iyo Afrika Kampala iyo sidoo kale wadamadan Bangladesh laakiin maanta shirkadu waxay maraysaa midowga Yurub inay ardada ay geen karto ee u diri karto wax waliba oo shalay mustaxiil ahaa shirkadu waxay ka dhigtay wax xaqiiqo ay ka dhigtay markay bilaabaysa shirkada Qubrus oo dalkaasi Turkiga uu maamulo inay arday u dirto jaamacad Cyprus International University oo laga leeyahay dalkaasi UK dadka mustaxiil ay leeyahay meeshaas in waxbarasho loo aado sidoo kale waxa mustaxiil la ahaa jaamacad oo dalkaasi UK laga leeyahay in wax lagu barto laakiin shirkadu way xaqiijisay ardadii way u dirtay maanta ardada jaamacadaas dhigto oo Soomaalida waa ardada ugu fiican oo natiijooyinka ugu fiican keensado taasi markuu waxay noo tahay guul iyo sharaf Kozlu Education Center ve Orange şirketi olarak bizlere düşen sadece sizleri kaliteli ve güzel okullarda okutmaktır. Gerisi siz Türkiye'de kaliteli bir eğitim aldıktan sonra buraya döndüğünüzde hem kendiniz için hem ülkeniz için düzenli çalışmalar yapmanızdır. İnşallah amacımız ve nihai gayemiz budur. annaga Kozlo Education Center ahaan iyo Orange Worldwide Company oo iskaashanaya waajibka dusha inaga saaran kaliya wuxuu yahay waxbarasho qiimo leh inta idin soo saarno dalkayda geeyno waxbarashada bilowdaan inaad inta dhameysaan soo laabataan oo gaar ahaan naftiina dalkiina iyo dadkiina aad wax u qabataan ujeedkaas oo wada jecelnahay idinku idin yaala wax badan maro inaan ka hadlo sababtoo ah intii la sheegay lahaa horteeda ayaa la sheegay intii barnaamijku ugu muhiimsanana waa la sheegay laakiin waxaan rabaa inaan ku daro pointiyo aad ugu muhiimsan ardayda gaar ahaan inaan ka hadlo pointiyo aad ugu muhiimsan shirkadda Orange magaceedu waa Orange qof walba markuu fiiriyo waa shay qurux badan qaali ah saas darteeda marka Orange waxay bulshada Soomaaliyeed ay u haysaa wax qurux badan oo qaali ah kaasoo loo yaqaano waa service-kaas waxaan ku talagalnay mujtamaca Soomaaliyeed in ay ugu faa'iideysano Orange waxaan mar walba leenahay waxaan idinka rajaynaynaa inaad dadaashaan guul gaartaan mar walbana annaga wixii aad horumarisaan waa idinku taageerana mar walba insha Allah taala waan sidaan hadda maartay aad u wadaan talaabooyinkiina waxaan rajaynaynaa inay maartay hor u sii socdaan insha Allah shirarkii ugu dambeeyay cilmi baarista ee adduunyada cilmi baaris reporting lama rabo cilmi baaris waxaan rabaa maxaa cusub oo soo kordhisay waxa la yiraahdaa research for development ayaa loo gudbay hadda ma research ordinary ah hadda lama joogo sida awgeed khibaraadkan xoog leh jaamacadaha Turkiga iyo Orange ay halkan noogu soo bandhigeen waa in loogu faa'iideystaa takhasusiyada ugu fiican uguna dheelitiran dibadda haddii la aadayo takhasus ariga badana waxaan ku taliyaa dadka Soomaaliyeed takhasusyada ay ku yar yihiin waa in la aadaa oo la soo bartaa maxaa jir cid buuxinaysa meeshaas waa la la'yahay hadda dal muslim aad jeclayd waa dal muslim hadda dal technology hormaray ee adiga aad jeclayd waa dal technology aan hormaray hadda dal ilbax adiga aad rabtay inaad wax ku soo baratidna waa dal ilbax wax ku soo baarsay aad ku soo baratay ay ka mid tahay hadday Soomaalida waxay iska jecel yihiin in la yiraahdo Yurub uu tagay America uu tagay haddaad Yurub jeceshahayna Yurubna iyaga leeyahay ku soo dhawaada